السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا كحرن جنال كينا جنال كحكمة تيوب أي يوتيوب كسور هذا مقال عصب. مقال كنا ما أنت وحكوسة بسنيا سيديت صور أو لوقا دي سكديسة وليبا أنا اللوهين وحف السرادة تاوشوا عن مقال قرن ميستر صور كوباد لبا أصحاب أيا اسكود إني بغضان قد كيا لدولك وستيسة لكن مركي قلين قد كأيا وحي أركين مخلوق نوع كلا waxayna go'aansadeen labadii saaxiib inay dhowr sawirra ka qaadaan waxan ay arkeen sida ay sheegeenna waxay dhaheen markaan ka qaadnay sawirka cod nooc kale ayuu ku dhawaaqay oo cabsi isla markiina sawiraantii waxay u gudbiyeen booliskii agagaarka ka dhawaa booliskuna wuxuu go'aansaday inuu galo godka laakiin uu ka soo waayay wixii meesha joogay daliilaan ka ahayn sawiraanta kaliya mooyaane waa la xidhay kiiskii maadaama uuna jirin meel loo sii daba raaco sawirka labaad rooxaantii gadaasha taagneed sawirkan waxaa la qaaday waqti habeennimo ah waana saddex dhalinyaro ah oo soo eegaysa kaamirada mana ayna arkin rooxaanta ka dambaysa ilaa ay ka fiirsadeen sawirkooda dhowr jeer sawirkan markuu baraha bulshada ku faafay dadka qaar ayaa yidhi waa photoshop dadka kale qaarna ay dhaheen maadaama meeshu keen tahay habeennimona tahay laga yaabaa waxaas inuu yahay rooxaan si adiga maxay kula tahay daawade sawirka saddexaad waa gabadh fadhida kiniisadda nin lagu magacaabo Peter Barter ayaa go'aansaday inuu ka qaado sawir xaaskiisa iyadoo waliba fadhida kiniisadda sidaan wada aragnana taasi waa mid iska cad sababtoo ah meesha waxaan iyada ahayn ma fadhiyo laakiin markuu ka qaaday Peter xaaskiisa sawirka ayaa waxa uu arkay wax dhar cad oo daba fadhiya xaaskiisa intaa kadibna dadkii agagaarka ka dhawaa waxay sheegeen kiniisaddan inay degan yihiin rooxaan lagana yaabaa inay tahay mid ka mid ah rooxaantaas afar gabadh aan la garanayn waxa ay tahay taariikhdu markay ahayd 1963 waxaa la dilay madaxweynihii John F Kennedy isla sikinkiisa loo dilay waxaa la qaaday sawirro badan si lacala hadhow loo helo wax raada ama wax laga soo taxraaco qofkii dilay xagaana waxaa ka soo muuqatay haweeney markii dilku dhacayna dadku waxay u kala ordeen si ay uga kala cararaan meesha laakiin iyadu si deganaan ka muuqato ayayna isku dhaqaajin oo ay taagneed meesheeda ilaa waqti dambe sawirka kadibna lama garanayo ayaa la yidhi cidda ay tahay haweeneydan macluumaad ku saabsan lama hayo ilaa maanta 5 sawir ka dul shidan Mars dusheeda Mars waa meere aan ahayn kan aynu ku noolnahay wali mayna u suurtagelin bini'aadanka inuu caga dul saaro Mars laakiin mid ka mid ah robotyada ay direen bini'aadanku ayaa waxa uu soo qaaday sawirkan lagama hayo wax macluumaad saa u sii badan laakiin waxaa la arkayaa inuu yahay iftiin ka soo iftiimaya meel aad u fog oo ka fog meesha sawirka laga qaaday intaas ayaan kaga gudbinaa sawirkan maadaama laga hayn wax macluumaad oo fara badan 6 sidoo kale waa sawir laga soo qaaday Mars dusheeda shirkadda NASA ayaa u dirtay robot meeraha Mars si looga helo macluumaad markii la soo helana ay u qeexaan culimada ku takhasustay cilmiga xidigowga tanna waa mid ka mid ah sawiraanta uu soo qaaday robotkaas sawirka koowaad waxa uu muujinayaa dhagaxaan dhowra oo saaran meesha laakiin sawirka kale ee meesha yaalla ayaa isna wuxuu muujinayaa dhagax kale oo weyn oo dhexda yaalla haddaba dhagaxaas xagga uu ka yimid ayaa la isweydiinayaa ilaa maanta 7 ma aaminsantahay ama ma isleedahay waxaa ku nool dunidaan saarannahay xayawaanada lugaha waaweyn ee aynu ku aragno badanka filimaanta fiidiyogan waa fiidiyo laga duubay dalkaas Canada iyadoo ka muuqdo barafka dusheeda xayawaan aad u weyn oo maraya dadka qaar ayaa markay arkeen waxay fikirkooda ka dhiibteen iyagoo idhi waa xayawaankan ku arki jirnay filimaanta ee Bigfoot 8 sawirkan male wax ciwaana xagga bidixda waxaa ka muuqda qof dhar cad xidhan madaxana u gashan yahay weji doofaar dhanka midigtana waxaa ka muuqda noolayaal ka soo daadegaya xagga samada inkastoo sawirka midigta uu badan yahay Photoshop laakiin kan bidixda ayaa waxa la sheegayaa in maaskigaas uu yahay madax doofaar oo dhab ah si adiga maxay kula tahay daawade muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay waan jeclaan lahaa inaad muuqaalka like saartid channelkana subscribe saartid si aanu 5,000 u gaarno oo subscribers inta muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa peace